السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتي قيمة يقدر انت مدن وعيد مالين ما صبت يمينا اللي طبعا لبدا كن يلي لباتنكا كسود هذا وركينا كوكوبا ندينكا يورباين تا ورجيسكا سيتي عنكو بلاد حبنا حسبك مشارحين حسبك برواقو كترتما يدقمدا إشاعة يا مانتا والله دورشدا كبلا ما يدقمدا إشاعة sidoo kale warbixinteena waxaan ku soo qaadan doonaa kumanaan ciidanka commandoska oo maanta qalin jabiyay isla markaasina dhameystay tababarkii ciidannimo intaas akhyaaray waa qodobada wararkeena haatan ku soo dhawaada iyagoo fidsan shacabka iyo taageerayaasha xisbiga ku dhaqan degmada Aysha ayaa u kala hadhin soo dhaweynta xubnaha xisbiga barwaaqo ee ka tartamaya degmadaasi Aysha xubnaha xisbiga musharaxiinta waxaa ka mid ah Marwaayaan Cali Muuse oo u tartamaysa heer federaal degmadaasi Aysha waxaana sidoo kale ka mid ah saddex xubnood oo ka mid ah wasiir ku-xigeenka maalgashiga mudane Ibrahim iyo sidoo kale mudane Winston oo isaguna ka mid ah ganacsatada deegaanka haddaba xubnahan musharaxiinta ayaa kulan ballaaran la yeeshay isla markaasina waxa ay shacabka iyo taageerayaasha halkaasi kula qaatay kulan ballaaran oo ay kaga hadlayaan si joogtaynta ula horumarka nabadgelyada iyo maamulka Suubaan kumanaan ciidanka kala duwan ee federaalka Itoobiya ayaa qalin jabiyay waxaa si habsami loo qabtay munaasabada ay ku qalin jabinayaan ciidamada booliska federaalka Itoobiya ee bara commandoska loo yaqaan kuwaasi oo dhameystay tababar adag oo la xiriira amniga dagaal adagna la gali kara ilaalinta nabadgelyada iyo ka hortagga khataraha amni munaasabadan qalin jabinta ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare mas'uuliyiinta dawladda iyo marti sharaf kale kuwaasi oo halkaas ay ciidamadu ku soo bandhigeen doola tus iyo sidoo kale geedka ciyaar aad u qurux badan iyo tababarkii ciidanimo ay qaateen isla markaasina ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan howlaha amniga iyo sidoo kale inay qaranka si adag u shaqayn doonaan ololaha doorashada ayaa waxa uu sidoo kale ka socdaa degmadaasi eerarkaas oo xubnaha xisbiga musharaxiinta barwaaqo ay shacabka magaaladaasi ay la kulmeen si ay ugu soo bandhigaan ajendayaasha horumarineed iyo sidii loo sii xoojin lahaa howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka Suubaan xubnahan musharaxiinta waxa uu hogaaminaysay Marwasaare Samir oo u taagan xubinka heer federaal ee degmadaasi eerar isla markaasina ka hadashay ahmiyadda iyo sidoo kale guulaha xisbigu uu gaadhay iyo sidoo kale howlaha horumarineed uu ka fuliyay degmadaasi eerar shantii sano iyo sanooyinkii la soo dhaafay degmada eerar oo degmada ugu wax soo saarka badan waxa ay noqotay degmooyinka waqti xaadirkan ka socda horumareed u ballaaran sidoo kale wararkeenana waxaan ku soo afmeelaynaa qaar ka mid ah magaalooyinka deegaanka Oromiya ayaa barnaamijka koridorku si habsami leh uga socda isla markaasina magaalooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah magaaladaasi Baabili oo iyadoo ka mid ah magaalooyinka u dhow deegaanka isla markaasina laga fuliyay barnaamijkan koridorka oo kor u qaada bilicda iyo quruxda akhyaari wararkeeni ka koobna caawa naga inta tan iyo kulanti dambe amaan Allah